generaalka wareysigiisa ayaana sidoo kale wax kaga weydiinay hadal dhawaan ka soo yeeray Korneyl Muuse Biixi Cabdi oo ku aadanaa in korneylku ku bahdilan yahay magaalada Muqdisho sidoo kalena halka uu ku dawaqmay hadalkaasi jawaab noocay ayuu ka bixiyay wareysiga ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo kuwa kale ay qayb ka yihiin in uu generaalku xog inaga siiyay hawlihiisii waxqabad iyo sidoo kale taariikh kala duwan oo ku qoray geyga Soomaalida ayaan wareysigeena ku lafaguri doonaa dawadayaal waxaa inaga ogeysiisa haddii aad aragtaan mararka qaar inagoo su'aal weydiinta kor ugu dheereynayna dabcan generaalka oo ah nin muddo soo shaqeeyay isla markaasna cimrigiisa waqti badan ku bixiyay horumarinta iyo dadaalada hawlihii ka socday geyga Soomaaliyeed ayaysan markan u saamaxayn inuu si fudud codka ku maqlo taasi oo nagu qasbaysay in aan codka u dheereyno waana marka fariin aan si gaar ah idin ogeysiinayno wareysigeena waxaanu ku bilaabi doonaa bal isbarida dadka jilalka dambe ah iyo generaalka iyo waliba hawlihii ugu horeeyay ee ay ka soo qabteen geyga Soomaaliyeed halka Soomaalida horta wuxuu bilaabmay muddo fog afartanaadkii buu bilaabay saddexdii markii dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkan la baxday SYC ay bilowday taana waxa ka horeysay lagu dayanayay 41kii waxa jiray mabdi ay soo wada saareen Prime Ministerkii Ingiriiska oo bariga la oran jiray Churchill iyo madaxweynaha Mareykanka la oran jiray Roosevelt mabda magaciisa wax la yiraahdo Atlantic Charter marka dagaalkii labaad baa socday marka Talyaaniga dawladda Yurub ka socday Yurubna dawladaha waaweyn bariga waxa ugu waaweynaa Ingiriis Faransiis Jarmal iyo Talyaani marka way qaybsameen oo Ingiriis iyo Faransiisna dhinac bay ahaayeen Jarmal iyo Talyaanina gees bay ahaayeen marka qoladii Ingiriis iyo Faransiiska waa lagu biyo keenay Jarmal baa qabsaday France oo dhan ciidamadii mudigool England loo cararay marka Ingiriiska iyo England waa adogtiin oo waa gasiirad ciidamada Ingiriiska oo Jarmal la dagaalamay Yurub bay ka dagaalamayeen gudaheeda yani Belgium iyo Holland iyo dhulkaas ay ku wada jireen markii de France dhacday marka ciidamada Ingiriisna waa ka baxeen Yurub Churchill wuxuu u cararay madaxweynihii Mareykan Roosevelt buqayladaan u dirsaday SOSA Atlantic Oceanka korkeeday ku kulmeen marka dagaal dushii 14 August 1941 marka wuxuu yiri Churchill haddana Mareykan dagaalka soo gelin doonida Hitler baa qabsanaya Hitlerna sida la ogaaday wuxuu yiri Roosevelt idinku dagaalka oo dunida oo dhan baad gumaysataan badankeeda Mareykanku bariga xoog buu yeeshay dunida oo dhan Faransiis iyo Ingiriis baa gumaysan jiroo haystay Mareykanku labada meesha ka saaray doonay sida hadda xaalku yahay oo soft power ku qabsado yani awoodiisa baraha badan kaliya ku qabsado isagoo xoog ku qabsano meel ku doolin marka way anaga idin ku beesarana taamada iyaga waa khilaafsan tahay hadaan dagaalka gallo oo idin la gallo Jarmal idin la jebino idin kula dhimano waxay noqonaysaa inaanu si gumaysataan idin badbaadinay taa marka dadka iyagu Mareykanku ma yeelayaan gobonnimada Soomaaliyeed xilligaas yar waan ku soo waday yar dul qaado marka waxaan dagaal gali karaa buu yiri hadii aad ogoshiin marka dagaalkaas dhamaado cid waliba inay xorowdo marka choice I had no choice gumaysta weyn buu laakiin I had no choice oo wuxuu ka baqayay in London Hitler qabsada waayahay buu yiri communique baa la qoray communique waxa uu egtahay in Ingiriisku qoray halkuu Churchill lahaa Roosevelt lahaa cid waliba ha xorowdo wuxuu qoran yahay waa article-ka 3 sideed qodob ay soo saareen waa qodobka 3 wuxuu qoran yahay in cid waliba doorato dawladda ku hoos noolaan lahayd taa macnaheedu wuxuu noqonayaa in Ingiriis qoray waxaan ugu malaynayaa cidina igu ma odhan wuxuu yiri haday ku waramaan inay gumaysiga ku sii hoos jiraan yaan laga dariiqa laga xidhin marka waxa cid waliba xorowdo waxa ku bedeleen in cid waliba doorato dawladda ay teefo inay ku hoos noolaato yani si way saddeed xornimo rabtaa waa iska sideedii
communique markuu soo baxay London markuu noqday Churchill waa la cunay kuwa ka daran waxay yiraahdeen sidaad u tiraahdaa cid waliba xoroobaysa oo Ingiriiska markaa waxay ku faani jireen qortooyada Ingiriiska qorraxdu kama dhacdo the sun never sets in the British Empire macnaha dunida badankeeda ay haystaan oo markay meel habeen tahay meel ba maalina ayay ka wadaan nimankiisa ku fikrayay baa xal cid waliba xoroobaysa way qabsadeen markaa war aan run ahayn buu sheegay inuu islaa hadhow hadii wax ku ogaagaan madama gumaysta weynaha ka baxday heshiiskii uu la galay Roosevelt iyo in kale war ma hayo iyo inuu markaa cadaadinta iska dejinayay wuxuu yiri saynahay waxba isbedeli maayaan there will be no change in our status quo sidaynu nahay waxba isbedeli maayaan marka wax loo qaatay yani oraahda Roosevelt inay ahayd Yurubtan laga xoreynayo Jarmalka sida yani Scandinavia iyo magaranaysa Benelux-ka iyo waxa yaan hadhow Faransiis iyo Ingiriis u hunguroonin oo oranayna anaga ku dhimanay oo qaar qaadan marka saasa loo qaatay laakiin run ma noqon yani Ilaahay baa ugu tala galay dad yowga la xoreynayay haddaan dagaalkaasi dhicin ciidamo ma xoroodeen waaga marka 19 dagaalkii markii intii dagaalkaasi socday Ingiriiska doorasho kama dhicin waxay ahaayeen National Front waaga maalintii Jarmal qirtay inuu jabay ba doorashadii Ingiriiska lagu dhawaaqay dabadeedna bishii April oo sanadkii May aakhirkeedii 1945 waxa nimankii dagaal ku adkaaday waxa la isugu yimi meel Berlin u dhow la yiraahdo Potsdam waa meesha Jarmalka lagu qaybin doonay Talyaaniga asaga lama qaybin sababtu waxa weeye inkastoo ciidamadii Allies-ku ay galeen Italia waqtigii dagaalkii oo dhamaan baanin Marshal Bieda la oran jiray Mussolini khilaafay oo yiri Jarmalkan la dagaalamaya oo Mareykanka iyo Ingiriiska waxa raaf marka inkastoo ciidamadii Allies-ku joogeen lama qabsan marka Talyaaniga Jarmalkiisa waa la qabsaday waa la baqaynaa iyadoo lagu jiro shirki baa doorashadii Ingiriiska soo gashay maalintii Churchill wuxuu yiri waa soo footaynaya soo noqonaya ma soo noqon doorashadii buu waayay ninkii mucaaradka xusbiga kala ahaa baa yimi wax ka dhabay ninkii wuxuu la wareegay wixii Hitler wixii Churchill uu Roosevelt kula heshiiyay markuu meeshii qabtayba wuxuu process gareeyay xornimadii Indian subcontinent taktaa ka sii importance waxa weeye dadka Mareykanku waa diidanayeen dagaalka inta badan marka Roosevelt wuxuu xidhaayay Congress-ka inuu ka helo inay dagaalka galaan asagoo wali 4 bilood aan ku guuleysan baa asaga la ataagay oo diyaarada Jarmal oo ay Jarmalka ay xulufahayeen oo diyaarada Japan oo maraakiib ka duulay baa Honolulu degada Honolulu Pearl Harbor Hawaii bay duqeeyeen marka Ilaahay inuu uu ka galay waxaad garanaysaa haddii intii Churchill Roosevelt aanu sharadkan ku xidhin dagaalka soo gala haddii weerarkaasi dhici lahaa dagaalka uu ku qasbanaan lahaa oo xornimada lama soo qaadeen Ilaahay baa saa u gartay marka sidii marka dhacday saasay noqday dagaalku soo galay waxa ku xigtay marka 1941 marka Ox 1941 way bay afar bilood ka dambaysa marka markuu galay waxa way afar bilood ka dambaysa December meelaha 1945 markii dagaalku dhamaaday ba dunidii oo dhamid la warkan baa la maqlay gobonimo doonaa ka dhashay meel la kala gumaysan jiray Soomaalidu waa ka horeysay 1943 bay bilaabatay waaga oo halkan marka maxaa Soomaalida Ingiriisku wuxuu u diiday in xusbi inay ku sheegaan oo halkana waxay qoray dalcado oo la haysto occupied enemy territory laga xirnaadi furta macna adeeyo naadiga wixii xusbi lagu qaban karay waa lagu qaban karaya waana 1943 marka 45kii Jarmal la jabay dagaalkina dhamaaday 2 sano ka horeysa Soomaalidu marka maxay loogu ogolaaday saraakiisha Ingiriisku waxay ka warqabeen Atlantic Charterka koob 41kii ah in xornimo doon cid walba soo socoto oo marka badanaa Soomaalida abaal gashaday islahaayeen okay marka markay dhacday gobonimada kiisaasay noqotay gobonimada markay noqdo dalkii marka Talyaanigu gumaysan jiray waxa la wareegay dalalkii dagaal ku adkaaday Jarmal isagoo waxba kuma lahayn marka Afrika dagaalkii koowaad
oo 1419 dhacay baa laga adkaaday marka dawladda ka adkaaday waa mustacmaradiisii Afrika qaatay qaybsaday talyaaniguna bariga kuwa jarmalka ka adkaaday uu ka mid ahaa halka marka dambe ay xuluf isla ahaayeen marka dagaalka cid waliba marka gobonnimo ay doonatay ay dalbatay halkan Ingiriis ba gacanta ku wadaayay Soomaalida gobonnimo ay doonatay sidii dadyowga kale oo kale oo waqooyigana markii 1945 United Nations baa asla dhashay oo akiday يعني Atlantic Charter-kii waxa dhashay waxa la yiraahdo self determination marka Soomaaliland xusbi kala ka dhashay SNS la oran jiray halkana markii dambe sanad guuradii afraad bay isu bedeleen xusbi oo yiraahdeen SYL halku ahaan jiray SYC kilaab halku ahaan jiray league bay ku sheegeen ay su'aashaada labaad xilliga dabcan waxa yani bilowgii baynu hadda gaadhay wali ka weynaa hadda Soomaalida صح xilligaasi waxa taariikhdu xusaysaa inaad door ka lahayd labada gobol ama waqooyi iyo koonfur inay midoobaan dadkii qaybta ka ahaa taariikhdu sidaa ayay xusaysaa door nuucee ayaa ku lahayd beelaha gobolada waqooyi sidee u kala taageereen midnimada adigu qola diiday halkan dad baa diidanaa laakiin qola diido tireem qola diiday oo tiriyaan ma rabno in la isku ay dariyo waxa ya waqooyi buugayga ma akhrisateen exactly ma akhrisay buugga Soomaaliya taariikhda Soomaaliya waa arkay anigu waan akhrin ma akhrisay marka dad badan oo aan buugga akhrin ayaa raba inay ogaadaan yaa diiday yaa sayeeray de buugga wax ka qoran kartaa marka qayb Soomaaliya oo reer Soomaaliland ah oo diidanaa way jireen laakiin beelaha intii kale oo dhan ayaa waxay isku raaceen qolada diiday bay ka hor yimaadeen waxana qoray Sharif Saalax oo London markuu 1990skii uu buuggiisa qorayay waxa jirta meel lagu ururiyo taariikhdii hore buu ka soo saaray waqtigii Ingiriiska halka joogay wixii dhacay qolyaha diiday gobolada waqooyi sababtay ku diideen maxay ku sheegeen ma anaysna laakiin yaana isku hadeen bay yiraahdeen waxayna u badan yihiin kuwa hadda ka goosashada u sababa magacooda ma sheegi kartaa ina magac hadda sheego ma jeceli macna ma sameynayso weyn ya kowle laakiin buugga waan qoray magaca waan qoray buugga hadda darasaad ku aragtay burga taariikhda Soomaalida kan hadda qoray waan qoray way taariikhda u baahan laakiin raadigu waa more ka effective yahay qoraalka xilliga la isku biiray marka labada gobol ay isku biireen labada dhinac dabcan waxa la qaybsaday awood qaybsigii saddexda xil ugu sareysay dalka gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidee ayaa loo qaybsaday oo wax aysan ogeyn jiilalka dambe waxaysan ogeyn oo aad nooga sheegi karto ma jira oo sheeko dheer taas buugana waan ku qoray laakiin briefly waan ku dul maraya hadiyada waan ku dul maraya waqooyigu waxa jirtay waqooyiga qaybsamay oo waxa jirtay markii doorashadii waqooyi dhaci doontay maxamed raacigaal horta intaan doorashadu ba dhicin markii hore oo Ingiriiska halkan Soomaali weyn ay jirtay waxa la raacay xornimo la wada gaarsiiyay marka Ingiriisku madaba uu ka warqabay oo halkan dadkuna calay saarayeen ciidamadiisa halka joogay waxaasna report-koodii dawladii adkaaday buu ka horjeediyay yiri Soomaaliya oo dhan la isu geeyo aniga la ii dhiibo United Nations la hoos geeyo aan xornimo gaarsiiyay saddexdii qolaba waa kala ku diiday Mareykanku marka wuxuu diidayay dalalkii ninkii gumaysan jiray hadda dhacay in gumaysi kale la hoos geeyo oo xulaamada United Nations la wada hoos geeyo Faransiis iyo Jarmal iyo Ruushna waxay rabeen Soomaaliya labada kale mar uma hayo laakiin Soomaaliya Talyaani lagu celiyay oo Faransiisku waxa laga yaabaa Talyaanigu iska taageeray Talyaaniga laha aniga hal ii dhiibo oo aniga dad baa iga joogo danaan ku leeyahay oo yana ana cid walba u dhaamo luqadayda yaqaaneen iyo waxyaabo aynkaas laakiin Hitler Stalin Soviet Union dan kale lahaa waxa jirtay doorashadii baa dhici doontay doorasho ka dhici doontay xaraka socotay Talyaaniga marka waxa jiray nin aad loo oran jiray Taliyoti xusbiga shuuciga Talyaaniga madax u ah marka hadduu kaas doorashada kale u xislaha oo Talyaanina Soomaaliya lagu celiyo ad Soomaaliya salaan ka dhigatay shuucinimada Afrika gelis Stalin asagu muraadkaas uu lahaa Faransiiska muraadkiisu ma cadda inuu Talyaaniga u taageerayo mooyaan adigu wala isku diiday markaas oo Ingiriiska waa lagu diiday markaa ra'yiga
ra'yi kala dhasho waxa la dad yowgii Talyaaniga dad yowgu haysan jiray Talyaanigu waxa la soo weydiiyay halkan la yimi markaa aan ka dhex galo general su'aasha dhigaalkaygu wuxuu ii ahaa saddexda xil ee Soomaaliya ugu sareysay markii gobonimada la helay sidee loo kala qaybsaday wax aysan ogeyn jiilalka kale oo isku xidhan haye marka halka markii la yimi waxay gudidaasi arkaysay oo kaliya Soomaalida kale ma arkaynin oo Soomaali badan baa halka timi waqooyin oo laga yimi ugaadeen waa laga yimi laakiin ma qaabileen gudidu ma ogoleen waayo sharci looma ogoleen waxay qaabilayeen arkayeen wakiilo Soomaali Talyaanigu gumaysan jiray kaliya marka bilmatal wafdi ballaaran oo Hargeysa ka yimi waxa iskaga biireen aswaalkii waaga adigu markii halkan wax kasta ka dhaceen taas uma baahnid baan maranaya wadiga iga dadijinaya waxa rabaa markii dabadeed waxa uu xaalka ku soo ururay koonfurta Talyaanigu arrinteena xornimo la siiyo wixii kale hadalkoodii waa laga haray oo gudidaas xitaa markay timi SOL waa taageeri weyday Hindisiga Ingiriiska waaga marka Ingiriiskana waaba kala qoqobay dhulkii oo sidoo markaas waa laga haray marka qolo waxay ku noqotay halkii awgar Soomaaliya oo dhan in koonfurta Talyaanigu ay soo xornimo la gaarsiiyo iyada marka processkeeda waa socday iyadoo dawladda Talyaaniga baa la horgeeyay oo halkan wixii ka dhacay iska dhaafay ayaa la horgeeyay waqooyiga waa la soo waa saaxato dhul la gumaysay ahay Ingiriiskuna qastaraaq buu sameeyay wuxuu yiri cid walba waxaan xornimo siinaynaa markay diyaar tahay Soomaalina marka wax diyaar ah uma ekay adigu markii halkan self government-kii la gaaray Talyaaniga de 5 bilood sano hay'ado dawladda ka dhalatay ba Hayle Selassie warwaray dhulkii Ingiriisku 1897 siiyay waqooyiga buu yiri igu soo wareejiyo inta ka hor Ingiriis baa gacanta ku hayay dhulkii markuu wareejiyay reer waqooyigana kacay markaa taasa baa ku noqotay markaa waa la ka xornimo Ingiriiskii markaa odayaal baa cabasho eglan u tagay iyo waxyaabo aan taas markaa Ingiriiska wax la yiri anaga heshiisna la haydana ilaalisay sidaas u bixisaado adigu u balbalaleeyo waa diiday baarlamankiisana uu ka qariyay oo wuxuu isa siiyay dawladdu isa siisay oo arintani go'aankii siyaasiga hore u dhacay ee baarlamaanka waa fulintana dawladda iska leh waxay ka baqayeen baarlamaanku inuu go'aan kale soo saaro marka hadda gashid computerka Somaliland Anglo-Ethiopian Agreement 1954 waxaad arkaysaa baarlamaanka Ingiriiska iyo wasiirka gumayska isku buuqaya oo qoladii Soomaaliya tagtay oo dhaxlay Michael Maryama wuxuu ka haystay dhaxlayaashii kuwii Ingiriiska la heshiiyay dhaxlayaashoodii Salaadiin iyo waxa markay tageen ka hor marka dadka la haystaa hadday cabasho u tagaan England wasiirka gumaysiga kaliya arkaya laakiin de xorbay ahaan magaaladii bay joogaan oo niman xildhibaan oo ay yiqiinaan bay doondooneen kiibay u yeedheen baarlamaanku markaas uu ogaanaya marka baarlamaanka uu yeedhay wasiirka gumaysiga markaa waxba waa uu ka garowsan waayay marka qaar baa yiri joojo waxaan oo United Nations ka la joojiyay waxaasoo wuu diiday wuxuu yiri waa dhamaatay markay soo noqdeen markaa NUF baa urur dhashay National United Front marka memorandum bay qoreen wasiirka gumaysiga leeyihiin sharci kuma joogtaan dalka heshiis baynu ku wada joognay heshiiskii idinka ka baxay marka naga taga xornimadeeda nagu soo wareejiya oo gabdharka la sii marinaya taasi ma dhacday ayaan daro laba beelood oo Soomaaliyeed bay islaayeen oo habar jecel habar Yoonis oo ilaa maanta laga bogsan Michael Maryam inka soo masiixi ah habar jecel ka dhashay habar Yoonis oo dhan baa ka baxday marka nafti oo mid Masar ka yimi oo la oran jiray Xasan Axmed Sheekh Muuse baa wuxuu furay xusbi la oran jiray Xisbullaahi oo rabay dadka madama uu dhulkii bixiyay Ingiriiska dadka ku kiciyo wuxuuna isagu taageerayay markaa Jamaal Cabdinaasir waxay ku beegantay markii Jamaal Cabdinaasir Masar uu qarameeyay Suez Canalka Ingiriisku waa garowsaday wixii waa la dhisay oo markaa wuxuu bilaabo si dawladnimada xornimada loo bixin lahaa sida la ogaadana 62 buu rabay inuu bixiyo inta kalena inuu hagaajiyo rabay xoogaa laakiin xusbigan xusbillaahi lama tashado waxna uma sheego siyaasiyiinta ma aqoonsana haddii uu xusbi siyaasiyiin wax loo sheegayo qoladii nafsiga Michael baana madax ka habar Yoonis baa ka baxday marka nafti oo dhan xusbillaahi gashay sababtu waxa weeyaan Michael baa habar jecel ah oo madax ka laakiin
حزب الله يوحنا قضي نادي هبر يونس الصومالي دي كلمة قليل نفتي والله تاجر سنة خيار هبر يونس وأنا باشا وقوب بدن قوي خيار هبر يونس أيام مركا ورورتي وعركتين تكورين هنا وأنا يوحي ذلك كالسعودي رول كل هاي أنا ما شيء كتر يكون نقدر ويسكلويه مركا أولا يبلعبين إليهين أولا يبلعبين إليهين حسب قومي والله يسوي من كره الله الصماعي هذا لما صرنا نقول بيقولوا لك كشرين والله قرابين أو حتى قولها برش على الشيخ لو رجع حسن قال له وهو قامين يجي ما قاعد تهرأ يجي هبر يونس هذا جولاي 97 بامريكا كونغرس بربرا لو قبطي كل شيء حتى يكون الشارع مشرين برجع مرة حدا يحمو يعني وما حب بربرا لو قشريا ملك الرجالي حدودنا هذا ملك كان كونغرس مرتجلين كرين قولدي markay habar yooniso waxa qalqaalinaysay waxay doonayeen in la doorto cidii xogaamin lahayd xusbiga nin iyaga inuu qabtana ma rabaan waxay ka baqayaan xusbiguna inuu noqdo naadi habar yoonis marka shir bay qabteen marka asay yiraahdeen maxay sameeyaan shirka markay qabteen in oday ay maxay rabnaa waxa la yiraahdo xornimo ma ingiriis baan kicinaynaa markaas la yiraahdo wuxuu yiri nin habar wada aynu cimaabadno inoo doona يعني ما ضحك نجنو. واي. مركز لو حلا محمد حولي يا سدا. أبرر وش حلا قلت ما يجي. وكيل البحثناي وقول البحثناي الساقة. حضر ضد وكور في ساقة أنت سكلي. واي. إنجلس شعيل ولا قلت ما يجي. مركز سال وضع قيلون يريد ما هذا رجال وضع ليرو كير. أنا أبتكر إنه هاي إنجلس كوا عريس المحلو عريس هاي. إنجليزكو qalqaalada uu waday inuu dalka xornimo ka sameeyo wuxuu bedelay qawaaniintii gabnarku sameeysan jiray oo dalka laba qawaaniin baa soo jirtay waxana waa waxa Ingiriiska oo England ka yimaada waxana waa wixii waaliga sameeysan jiray oo cashuuraha iyo amniga iyo waxa soo dhan marka waaliga baa la yiri wixii sameeysan jirtay gole u sameey ka dooda oo la saakaliya gariiqan guud baa u soo diyaarin jiray uu saxiixaya wax lagu soo nashirayaa wax la yiraahdo German Gazette halkana loo yaqaan official bulletin oo kale marka waa sharciyada kale la mid tahay marka tiiba la yiri joojiyo gole u sameey ka dooda golihii baa marka 6 nin uu qaadanayay 6 nin shuruud lagu qaadanayo oo mutacalimiinta aan dawladda u shaqeynayna afar ku tiris bay ahay kuwa dawladda u shaqeeyana Ingiriiska lama ogla siyaasadda inay galaan odayaal iyo ganacsato saddexaas la qabanaya waana 6 nin waxa la qaadanaya maxamed cigaal oo dhalinyaro ah oo business college ka soo baxay oo markuu yimi aabiintu bogooday xisbigoodii qabsaday uu fishay inuu 6 ka mid noqonayo sababta waxa weeye wana ganacsade weyn wana mutacalim aan shaqo dawladda u shaqeeynin waaligi waa ka tagay aan ma dhalinyarnimo uga tagay marka sababta ugu caraysnaa Ingiriiska waa sida oo marka gobernadorka Afrika oo dhamay akray isugu tagaan oo gaana xornimo qaadatay Jawaal Cabdi Naasirna soo Afrika iyo Asia wada shiriyaa oo la yiraahdo Asia Conference oo Qaahira ka dhaca shirarkaas uu tagaa laakiin waa kalidii حسب كمان دنبينين أنت مركي ساسة حالك العين ألقى أو مريو بقى ساقي مركا الله يورو لي قبصو ماشي شركة حبر يونستي وقت أجرينا يصرف في عن بوش الدقيقة حسب جي مالك يسيبه كوبا بيا حسب قبل نفسه مركو حسب قديس هاي وكنت جايين حبر يونستي وأنا لقفلين إلا قطعوا إسماعيل نهار لأورنجري أما أنا كونفرت كله أورنجري مركا واحد شيء مبدأ ما كيفيلي ما مغشي هادية مبدأ ما كيفين اللي يراد هادية بوقي سبرينس ما أخذ ذي ما أخذ لك ما أخذ إلا لو راد سو قدرت سيرت ذي هي إلا ولي والله طابعة ما أنت سينس 14 سنتوري ولي والله طابعة وحولي هي حكوا نكى كسارة كاقادة ما دام هبر يونس صارتي نكى هبر يونس وكلي أسجل بدلي كريه هدي اللوبة هذا أبوه كتجي دور شدي كريه خلاف كاس مركز شري وثير وقوي قد حضر أول ما كان حاجة سجية عقال يعيب على عقال هل كان على مرة يا مركز صدق دي هل كان لي من مركز قلت دي أرت مركز دور شدي مركز دعابة حسبي دور شدي هذا ما حد راعي قال للي يروح حق شرعه بقى كقبصتي أودي وما حد دي ليه دور حسبي مركز ولا شو يعني دور شدي مركز دماغته دولة داخلية كذا لنا يصير سومالي لا هو أبغى دلالة طيبة وأفر بالصومالية بوجي رأيه وتضبط وسرية ومجورة تقوى صومالي للي يرى ذن حجر هي دولة داسي دي تناير وحنا الحرمة ده بعقبات كنا قريسة ده تقصد يقول لك لوك عشيء
shan sanadood waa kacsan yahay kacsanaanta wax lagu gaaraa xornimo lagu gaaraa iyo israac marka qoladii siyaasada iyagoo yani xiriir ku jira bay halka yimaadeen SWALkii iyo dawladdii iyo xusbigii bay baarlamaanka labadiiba la xoojoodeen iyaga ka hor ingiriisku gumaysiga hargeysa yimo wuxuu laba xusbi doorashadii sameynayna waa February 1959 mid hadda doorashada la gelaya oo doorashada lagu baranaya sanad baa la shaqeynaysa sanadka ka weyn baa doorasho weyn galeysaan marka doorashada weyn gashaan afar dawlad baa la dhisaya afar Soomaalida wasiir noqonaya doorashadii yareed xusbigii xudumada dhaliyay oo maxamed xigaal madaxa ka ah waa qaadaceen may gelin tii sanadka yarahayd waxa galay Michael iyo SWAL iyo NUFT iyo Michael madax ka yahay marka qolada doorashadii gashay Michael baa uu ahaa parliamentary group leader halka yimaadeen SWAL ka bay la xajoodeen Israaciil baa laga wada hadlay waqooyigana xornimadii la soo socotay waxa lagu heshiiyay qolada markay xor noqoto aan sunnimaad oo guddi samayno Michael markuu noqday shaqaalihii dawladda siyaasadda loo ogolayn buu brief gareeyay la marka hadhow waa dadka dalka wadaya doorashadiisa muu helin cigaal baa helay marka sidaas markay u dhacday cigaal iyo halka markay imaaday qaxooti bay ahaayeen maxay ka qaxayeen mikrofoonkoodii culays ku hayay maxay u qaxayeen midnimo inay keenaan halka imaadeen marka SWAL iyo dawladdii Cabdullah Isaaq la xajoodeen way socdeen iyaga socdo waxyadan xornimo israac degdeg aan doonayna xaqoona baarlamaanka waa dhashay dawladda dakhiliga waa jirtaa markaas waxa la yiri sidii ay Michael kula hadleen lagu heshiiyay bay la hadleen waxay yiraahdeen waa yahay 6 bilood aan isku soo noqono idana xornimada soo qaada waa qiiqaysaa waa la ogyahay in dhaqso u dhalanayso anana talaan ugu 2 bilood baa baaxay anaga dhamaado markaan soo nimaadno wuu diideen waxaan reer afkiisa waxaan ka hayaa waxaanu niri buu yiri meel aan ku noqono ma hayno waxa la yiri aadan Cabdulle tan su'aashaadii ba ka jawaabaysaa hadda waxa la yiri aadan Cabdulle yiri war jooga halkan wuxuu li waa diyaar idina waxba diyaaridii ma hadda degdeg ah rabtaan la isku raaco miyaan la idinka bursanayn waaba xanaaqeen baa la yiri nabadna Cabdulle Ciise maslaxay bas الله نحرسه حقا والله عبد العزيز مسوي صاحبي في عنتي ما عرفتان سرعه دقدقه مع شرط مره ابنه waxay ka baqayeen hal sharad haday yiraahdaan oo la ilaa hadalka aan soo noqono arintu dhamaan weydo in hadhow ay hargeysa madaxa gali kari waaya sidii baa lagu dhamaaday iyaga ikhtiraacay wuxuu ii sheegay gabyow ninkii ahaa Cabdullah Ciise wasiirkiisa dastuurka wuxuu ii sheegay dastuurka marka ingiriisi ma aanan hayn buu yiri nuqul talyaani kaliya aanu haynaa oo laga dooda laga hadlaa waxaan niribuu yiri nin la oran jiray kalidii oo ingiriisida yani u dhigmay waqooyiga oo la oran jiray Nicolino waxa weyn buu ahaa wuxuu ahaa secretary Cabdullah Ciise markii dambena foreign ministerka wuxuu noqday agaasimihii guud ninka boostar ruusada Cabdirashiid Qariyay buu kamid ahaa dabadna Cabdirashiid buu markii dambe u ahaa secretary u noqday markuu madaxweynaha noqday marka wuxuu yiri lukanilahaas baa waxaan yiri translate garee way gacmaha reegal joogo u dhiibay dastuurka marka waxa la dastuurkii waxay yiraahdeen kiidan ku shaqeynaa anaga xubno wada diyaar dastuurkii markay qaateen kelmad quray soo qoreen waxay shaqaalaha dawladda iyo siyaasadda gali Cabdirashiid Xuseen Mowji buugiisa ina aragteen wuxuu ku qoray macaarad isku Israa'iil alkaabay ahaayeen Cabdirashiid iyo qolyo badan wuxuu yiri waan u bognayo marba xusbe laga saaray iyagoo macaarado 13 iyo kutub xoor iyo qoliyaha wuxuu waan u bogno 19 golaha dhexe xusbiga naga saaray mid ma ahay 18 kale halkan waxay ahaayeen shaqaalihii dawladda oo prime ministerka loo yeelo ah marka waan u bognay fikradda xuquuq keenan waana lagu daray baarlamaankii oo labadii doorasho oo markii la Israaciil la qaatayba ninkii shaqaalaha oo yiraahdo waxaan doonayaa inaan baarlamaanka galo weeno 6 bilood ka hor istiqaala marka halkan markii la yimi isaaqa qaybsana oo qoladii garxajiska xinaaqsan diidanayd ninkii laga tagay Ismaaciil Nahar waxay maxay ragaalnuu doonaa uu wasiir ka dhiganaya kalitalsnimo weenan ka ilaalina yani cirkaas oo maraya in la rido la hadla ma lama hadal hayo laakiin kalitalsnaan ka ilaalino madaxdii halkan SWAL-kii iyo dawladdiina waxay ku leeyihiin asaga ay nooga horeeyo oo ay isbarteen marka waqooyiga ayagii taageeraya warsagal iyo dhulbaanti oo macaaridka SWAL-ka taageersan intoodii marka halkan la yimi markii xornimada 26 ka dhacday waa la soo wada yaacay halka la yimi afartii wasiir ba afar cisho hargeysa ku sii hadhay halka la wada yimi marka dadkii badnaa
oo intooda kale sanad USB bay u soo jeediyeen oo yaraadeen macaaradkaas waa wax la qabsano yaa u soo jeedinaya in minority ah xildhibaano oo garxajisa oo saddex ay ahaayeen kaliya toddoba ay ahaayeen afar inta kale waxay la socdanta badan iyo wixii xildhibaano warsagal iyo dhulbaanta ahaa intii badnayd oo sanad USB waa ku diiday waxay tiri maxaa naga mas'uul macaaradkeeda macaarlaanteeda naga galay niman la hadalay aan ku ekaano haddii cidi bedeshana waa meesheeda iyagoo halkaa kala jooga yeelkadeeda qolada macaaradka ay waxay arkeen macaaradkaas waa qolada tan yani garxajiska iyo USB bari waa warsagal iyo dhulbaante macaaradkii bay arkeen aswaal Cabdirashiid madaxu yahay wadaaro badan adu kutub xooriyo waa ku jireen hawiyeen dhaqanin baa ku jiray باور شيء ما لقوا هذا خدني واحد عبد الله هذا عبد الله مدحوينه وقدرنا نقول تاجيره بري من سرك قاطع markii afartii wasiirtii min warkiina maqashay afartiina waa kala jabeen oo laba dhinac bay martay qoladan la yir baray misterka idinku qaata waxa ay ku adkaatay inay Suusaan Cabdirashiid iyo Maxamed Raaga Allah ومحمد الرعيل بعد ديدنان ولا كل ما معارض كأسوأ يدو سريع بعد بدأت بركي لقاري هذا عبد الكودي شو ده لقاري إسرائيل بعد ما هذا عبد الله والد دورتي رئيس البرلمان كنت تضبطي والد دورة شولاي بركي الدولة مسحاتي وأحب كل شيء تضبطي شولاي مركي لقاري شنتي مركي لقاري بشي بيقولي لي برا مسترك قاطها كل واحد عين وحي أسر USB دلك هالكيمي باي كان عصته عد والباص سياسيين أفميشار وحاجة أنا وحبان هاي ناي نمك بدنا هالك فردي الله ييرو والله هيان وأسر USB دي سياسيين تدي بدنا ما حد بيرجع لك مديا سيري بقى لو نفتح عليه بريته شبه اللي أفجو يشر أسر USB وجماعة هالك بقى نسوته مع أفميشار هذا مع دليل هذا مع عادي حد ما نادي كي حسب الله يسميه أبغى يونس بقدر شيء بشركة فروم هذا رجال بوعنانتي هو حيري لا ده بدري ده روح هيلو ولا كان ضيعان هي ولا إسكما هيو كان يصير له حاجة محمد ده رفع قال الشركة لو هر عنانتي بكحناقة بأمر كسر وقاته وحير هذا والليدر كان سما يستوي سكتجي ماشي لو ولا كان تجي ولا سكر الضريري وحبب مركز ده جوان متشر وحلا حط لي الهاي الضودي وده ماضي وحلوه مالين يا مركز إن قولدي لبدي جروب أو يسركي ولا بدي هو minority كون SN USB أو أنت كان حاجة زي ورسكري يروح أنت أيوة minority مركز الله يجو بس أنت وقوي يقول كون هو minority مركز يسوى الله يجو لو هو ده ودي بكل ماي عندي اختراع هذا والله ما هيو وحاول نقول الشيء إن كواحدة من غير وقوي رئيس البرلمان كان سطو وحنا الله ما لينا يا قولنا معارض كيسوى علينا الثلاثة لهاي marka waxay keeneen in iyagii kamid ah kooxdaas awal ah ku xigeenka afayeenka waqooyiga Ingiriis buu ahaa Jaamac Abdullaahi Qaalib aniga noqon doonay marka beriteed bisha toobadeedii qoladii kale oo marka dawladii Cabdullaahi Ciise iyo qolihii horena nin warsangeliya oo la oran jiray qablan bay u sharxeen ra'iisul baarlamaankii marka waxa loo maleynayaa in qoladan ma jirteen la hadashay asaga oo la yiri iska daa dabadeedna uu ka baxay meesha tagay wuxuu yiraahdo musharax miye جامع عبد الله قالب كي مركز لبضن كحوت كينين كلية ماشي مشرحة والله دورتي مركز إن قولنا ذلك كينتي معارض كانوا دارود كوبدنا وحلو قرن كرا بوجي رسالة أنا قري إمبدي اللي لدورتي رئيس البرلمان كي شيء كم معقولة بشرايط كانوا اللي جليه شرايط كانوا الوطن وهذا في الدور الكلية هذا وأنا معقول وحلا يري مدحوين وعرش الوقوي ما أنت أكور إير من بقل مدعوين وعير رئيس البرلمان كانوا وعير ده شغل هذا يواتي غيبتي دارود ككيري مركز هذا عبد الله إنه تاتح قليي يقول هذا الله هيدي هذا عبد الله دون إنه يسوي إنه يخرج السوق جايه ماذا يتهيبه وكيع بركة عبد الرشيد بو مقعاوي وايح وحكى أنت أولى وهيدسه وحلاه ملايين يا قول هذا وقويه إن أنا يقرني رئيس البرلمان كي قاتلين بريم السلبة اللي جوا ودي صدق تشجوا وين ده كل ذلك أنت بدن بالله بقى هذا نيسا وهو يقول مد مناسبة بو حق لها أما بحوينا أما بريم السركة
arrinta taariikhda marka horta say ku dhacday lagu waayo waa sidaa waa aad iyo aad taas waa kartiga daba aad iyo aad meel dheer baan soo maray laakiin waa ka saa sida ugu wanaagsan sharaxaad fiican baad ka bixisay sharaxaad wanaagsan baa ka bixisay general arrinta taariikhda hadda inta kaga gudubno maadaama waqtiga gabaabsoo nugu yahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Colonel Muuse Biixi si bareer ah 18 sanad guuradii hadda ahayd wuxuu kaga sheegay hadal aflagaado u muuqday oo adiga kugu dirayo oo ah inaad xamar ku bahdilan tahay aad ku jahwareertay hadalkaasi maxaa kaga jawaabaysaa general ka jawaabi maayo taasida ka sida uga jawaabi maayo dabcan dagaal la sokeeyay ayaa gudaha Soomaaliland in badan ka jiray 30 sano ee ugu dambeysana dagaaladu way sii jireen saameyn intee lagay dadka beelaha ah dadku inay isaaminaan ama ay dimuqraadiyad noqdaan ama ay dawlad noqdaan saameyn intee lag ay ku yeelatay dagaal beeleedyada horta birsinta horta nabadda guud weligeed way iska wanaagsanay taana lifteeda waxa iska leh odayada oo sababta waxa weeyaan markii burburkii dhacay waqooyiga nabad baa ka abuurantay odayada dadka oo yaani dadka sababta waxa weeye sababta ay saasanuga wasiir gudaan ahaan jiray waliba koonfur iyo waqooyi koonfur baa dadku odayada u dhagan nugul yahay laakiin waxa waqooyina ay wax ku qaban kareen halkan aan wax ku qaban kareynin waxay ahayd waqooyi ingiriiskii odayada uu shirin jiray ومدام uu heshiis ku yimi halkan Talyaaniga xoog buu ku yimi marka ingiriisku madama uu shirin jiray dadka markuu amar cusub soo rogayo odayadu horta ka dhaadhicin jiray oo shirin jiray oo muddo laga buuqi jiray odayada qaar diidi jireen oo adigu aakhirka uu marsiin jiray wuxuu sameeyay marka maxay iyagii ka kordheen ingiriisku waxay dad ku shaqaysteen isbarashay ka kordheen ay isbartaan oo bilmatal ka si kulul ingiriiska inuu dadku iska hadla waa dooni jiray oo ingiriiska si kulul loo hadlay iyo waxyaabaha aynkaas ayana gaaladuna waa ku sheekaysan jirtay isugu sheekayn jirtay dadkoo dhanna waa gaari jirtay bilmatalna odada ayaa wuxuu yiri iyadoo shir baa loo fadhiyo jiray oo shir buu isugu sheegay jiray loo oran jiray advisory council oo odayada loo oran jiray ka taliya maxaa iyadoo la fadhiyo abaar baa dhacdo biyo la waayay biyo dadkii laga qayliyo maxaa ceela loo qodi waayo baba aynkaas kii ingiriiska oo dawladda u hadlaya wuxuu yiri lacag baan loo hayn oday baa wuxuu yiri haddii adigu lacag haysan kana ay madeerka tiina Mareykanka wax ka soo amaahda magaalada waa ku farxayaan oo waa isu sheegayaan waxa soo dhan Soomaalida meel walba waa gelaysaa marka niman baa jiray aynkaas oo afdheer oo yaani odayaal oo kaas jamirka in baa loo rajiray reerkiisuha waxa jiray warsama cali obsiyo reelaas caanooda si leeg waxa jiray indhoortay maxay dugsiyo reer boorama si leeg yaani odayaal baa jiray aynkaas way isbarteen marka iyaga iyo dhakuyodaas haday tageen dhaxlayaashoodii mushkilad waqooyi ka dhacday oo isugu wada tagi jireen oo xakameyn jireen yaani say ku dhacday halka kan miyaa oday dadka oo dhan haduu yado fadhiista la fadhiisanaya haduu yado ka aan la kacayo tuulada tiis ku xigta lagama yaqaano inta badan wixii beled weyn xagga ka soo xiga tuulada ku xigta lagama yaqaano beled weyn wixii xagga ka xiga bilmadan marka wasiirka ninka odaya oo waxa xawaadla la dari soo dhamiiqinay wuxuu ahaa ogaaskii hore xawaado khaliif la oran jiray marka sababtu saasay sida nabadda ay xagga marka nabadda tanaad wajisay wax waa dhaceen laakiin dadkii waxa gudihiisa way isleynayaan laakiin taas de Soomaaliya oo dhan bay caado u tahay isla Soomaalida waxa la yiraahdaa baron to violence waaga maxaa la gudboon beelaha hadda gudaha gobolada laakiin yaani waqooyiga ceebta galiyaan u hayo goosashada goosashadii tuko waxa ka xun baa hadda halka dhacaya dawlad goboleedyadan la leeyahay goboladan leeyahay waa xubno federaal xubnooda caqabad bay ku yihiin oo Soomaaliland koonfur oo dhan oo midabay la heshiisay halkana koonfurta daba dawladeed baa ka jira marka gobolka Banaadir lagu daro waaga deeyana waa mid kaliya marka labadaas isu iman kari maayaan waayahay maxaa la gudboon beelaha ilaa haatan lagu colaadinayo arinta midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya midnimada dhinac kaliya ka dhismay mayso halkan waxa aan dhisnaa warqaal baan qoray October 2015 15 baan baqal qoray oo waxa ii yeeray awaakhirkii September Universal TV waxay yiraahdeen shir baan sameeynaa 4 October maxaadara ku saabsan federaalka waxaan doonaynaa adiga iyo Faarax Qare inaan nooga noqotaan panelists
واقع ورثنا هدي فدرال بلغ هذا يحضو أنا أحكي قره ويا شيء طبعا قالوا سنة يا بيراد أنت المالين تلا قارين بما نحدي في يونيفرسيتي الدولة دي حسن الشيخ سكول عيونه ولا حدا هدنا الدولة دي واحد ربطها شركة ونوضعونا من سويسرا سويسرا كان صوت صعدة بس صوت صعدة أو دولة دو عسوتة الشركة اللي عسوبة لقى واحد ربط الدولة دي أنا ونوضعه وحنا عن لفافل ماشي وان تقنعني فانا يو بنالس بارمونه يعني ورقديدي waa dhiibay dad badan ma imanin xogaa 45 qof oo dhalinyaro u badan warqadeydina waa qaybi warqadaasaan haya xal waxa noqon kara in goboleedyadan ay ka baxaan meesha maxaa la sameeynaya two federal states waqooyi iyo koonfur waqooyi tooda u badnaanaato ama ha iyo qaateen ma iska daayeen dawlad goboleedyadana waxay ka hoos dhisamayaan state kooda يعني دولة قبليات كشران أود لصيانة أنا قانا قلها وذلك يقولها دولة ده ما وده قاعد يسوي ما نسيسه ودولة قبليات وين شران لكن واحد يدرنا هنا يروح دار فدرات سبت عوي دولة ده بارلمان كان له حساب طبيعي بارلمان كان قبلها على قصة دورته مركب ما بالله بحنا هنا يرادو دولة قبليات دي حنا قدرنا حنا فدرات وايا كر المصبيحي طبعا وحلقوا إيريا إنه سياسيين قبلها وقوي كسر جدا دولة اللي حكترسن إنه كلا دويست يقول عليه مصبيحي كورال المصبيحي وحلو أديا إن سياسيين تكسو جيدا قبل هذا وقوي دولة اللي حكترسن إنه كلا دويست أو بيلهان قاركوس ودويست والله يا الله والله يا بطل والله يا تابع لكن دفش ودي ساميسا يا ساميسا وحق أرنتاسي محي سامي حق كم يقول حوا مقلاش كعين كاس سامين انت لك اي كل يا شعين كاسب marka geeridu Umar Ardu ka hadlayo Cabdi Xaashu soo qaaday waxa waa la sheegay marka taasoo hadda waqooyiga waxaan filayaa xagga uma jeedaan doorasho soo socoto oo doorashada say ku kala adkaadaan bay hadda ku qufulay way oo hadda ma filayo inay address gareynayaan problemka waaga hadda waaga 30 sano kadib maxaad ku qiimeyn lahayd Soomaaliland ama gobolada waqooyi xilliga ay go'aan kadib wax kasta oo ka qabsooma koonfur iyo waqooyi mid kasta ay tahayba anu kala go'aan khilaafsanahay sababta waxa weeye midnimo Soomaaliyeed in kuwa kale wax nagu soo biiraan mooyaane in kuwa hore kala tagaan waa nuqsaan qiimeyntaadu marka aniga waxba soo dhaqaaqay ka dawo ma waa sida waayahay aragti ahaan dadku waa kala tagay 30 sano la kala maqan yahay aragtidaadu sidee midnimadii shalay dhuntay loo soo celin kara midnimadii islaan ku sheegay dhinacana qaladkaas jira anigu waxaan isleeyahay midnimadii waxay ku iman kartaa oo kaliya in two federal states ay sida ku taado dagaalkayga ma aragteen federal states aad ma aragtay kan October ma aragtay 2015 waan arkay laakiin dad badan oo aan arag oo aan ogeyn ayaa kaamirada naga daawanaya dadka waa ku siin doona koobi kowde midda kale wax loo baahan yahay waliba anigu waxaan ka dalbaday in dhalin cid waliba ay bidacdeen cid waliba waxay la tahay inay qorto aniga keen kaliya aan lagu ekaanay aan bari fayd garay way si ma aragtay su'aalaheenu ay dad badan jawaabaha ay rabaan uga dhaxelaan waxaan rabnaa waqtiguna wuu nahayaa inaan kisto dadku wax u faahfaahino Soomaaliland 30 sano ay aqoonsi raadinaysaa welina ma aysan helin ama ma aysan u dhawaan maxaad is leedahay inay aqoonsi yeesho Soomaaliland way ka hortaagan tahay ilaa dawlado badan oo la mid ah ayaa go'ay anigu Soomaaliland kaliya ba ma ahayn South or North mid doonta ahaad qolada tan waxay yiraahdaan midnimada yani iyaga midnimada inay raali ka yihiin bay sheegaan laakiin talaabooyinka ay qaadeen baa midnimada dhaawacaya sidaan ku sheegayay in lix dawladood in waqooyigu yani way la gartaa Soomaaliya la midowday iyadoo mid waliba mid tahay marka midna dawladda dawladood midna waa midii waaga marka daweyn la gartaa yani waxaan iskeenaynin labada dhinacba marka anu labada dhinac mid walba qaladkiisa ha jira anigu mid yani kala go'o waa khilaafsanahay Soomaaliland hadda doorasho loo madlan yahay inay ka dhacdo dad badan waxa ay leeyihiin doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 3 xisbi oo ay ku mideysan yihiin beesha dhexe waxa Soomaaliland lagu yeero sawir nuuceeya ay Soomaaliland arintaasi ka dhalinaysa warintooda xitaa midnimo doonayaana hadda Soomaaliland buu iska oranaya ila doorasho doonaya oo marka hadda yani hadda lama qiyaasi karo la garan karo sanadkan doorasho ka dhacaysa Soomaaliland 3 xisbi
ucid iyo kulmiye iyo wadani هو صدق حسب ووجه هنا يهين سواء soo ma jiraan beelo aan xisbiyo ku lahayn Soomaaliland oo deegaankana ku badan أنا سواء حسب كل هاين ها عيد والبوح هو كجيران لكن لو كلا بدن يهي هي dadka laga badan yahay ee deegaankana ku badan dadka aan filayo inay xisbiyada aad ugu badnaayeen badan ma bariga wasagal yeeru baa saameyn noocay ku yeelanaysaa marka way ku yeelanaysaa dadkii wixii waxaan loo dhameyn bay noqonaysaa way hay general aad iyo aad baad u maasan tahay waan kaaga mahad celinayna waqtigaaga waxaan rabnaa ugu dambeyntii fariinta aad daawadayaasha uga tagayso ayaan fursad idin siinaya walda dawaasha waxa weeye فريفول ما نقدر عليه. أنا أقول لك ده مدمر أن تاجر سنة هاي سومالية. لكن عندي ده صور كيسا إن سكر أو قبضين هيسو. درب جاي لته صوص عمري أنا هلا السوق. aad baad u maasan tahay guud ahaan daawadayaal inta aynu ku soo gabagabeynayna waraysiga gaarka ah waxa marti inagu ahaa General Jaamac Maxamed Qalib oo xubno badan ama jagooyin badan ka soo qabtay dawladihii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliya waxa uu 20 sano ugu dambeysay saldhig u ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya walina waxa uu doorkiisa yahay mar kale iyo midnimo waad maasan tahay ayo maasantii way